السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحلو أقدر على كدعاء دلك مريكان كا نين تاجر ورش دلك مريكان كا يقولي سوست سكقضي قدوين أو كقراه دي وضعوا غير نوكليرا أي القصة جاي دعوة ولا كده مركو لنتين نيك وصو كريستي سو قد كيسو قضاء نيك لو لقوا مع دانيال بيك بتوكل تشريا قضنا أي قد كان عبسو كقبوا غير نوكليرا دون كدعاء awgiis balse ninka godka u qoday akiisa kafta ayaa ku dhintay kadib markii uu gudaha godka dabka kacay booliska ayaa Daniel ku eedeeyay dacayad iyo beeraha ku sameeyay nafta bini aadamka halkee ayuu Trump ku dhuman karaa hadii uu dhaco weerar nuclear ah ruushka oo beeniyay uu qarxay hubka nuclear-ka maxay ka dhigan tahay tijaabadii ugu dambeysay nuclear-ka Kuuriyada Waqooyi godkan oo guntiisa ay dhantahay 60 mitir ayaa hoos u qodan ilaa 20 feet kana hoos qodan guriga ninkan taajirka oo ku yaala magaalada Washington waxay booliska sheegeen markii dabka ka kacay uu ninkan guriga ka baxsaday balse uu gaabiyay in kooxaha gargaarka degdega uu sheego qof kale meesha uu ku xayiran yahay waxa kale oo la sheegay in Mr. Daniel uu sameeyay isku day kasta oo suurtagal ah ninkan dhintay ee uu shaqayn jiray uu kaga habaabinayo inuu aqoonsado halka uu guriga ku yaalo isagoo saacado gaariga ku marin jiray wadooyinka kadibna guriga ka gelin jiray meel uu fahmi karin Daniel Pickwick dhimashada ayaa dhacday sanadkii 2007 balse hadda ayaa baaritaanka lagu soo gabagabay waxaana la sheegay in maalmo dhan oo ninka dhintay ka shaqayn jiray oo gudaha godkaasi uu ku jiray halkaas oo wax uu ku culi jiray suulina ka geli jiray isagoo aan banaanka u soo bixin sida ay sheegay dacwadoogayaasha soo dacwada ninkan dhalinyarta ee taajirka Daniel Pickwick waxa jira dad badan oo Amerikaan ah oo kamid yahay madaxweynaha dalkaasi Mr. Donald Trump oo guriyahooda ka qotay godada ay ka galaan hadii uu dhaco weerar nuclear ah maadaama Mareykanku cadaw fara badan leeyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.